diblomaasi media ayaa daawanaysaan wacan oo wanaagsan dhammaantiin saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya. qodobada aan xilligan idin hayo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo lagu karkarinayo qorshihii ugu cusla oo ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jubbaland iyo inta badan siyaasiyiinta mucaaradka oo gaaray magaalada Nairobi iyo dowladda Kenya oo martigelinaysa shir weyn oo ka dhan ah Villa Soomaaliya. haddaba sidee ayuu qorshahan halista ah uga hortagi karaa madaxweyne Xasan Sheekh? goorma ayay dagaalameen madaxweyne Xasan iyo dowladda Kenya? warbixino ayaan idinkaga soo gudbin doonaa insha Allah. dowladda Mareykanka oo fariin xasaasi ah u soo dirtay xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo go'aan laga gaarayo doorashada Soomaaliya ee 2026. maxaa ku qornaa warqadii ka kaneed ee Mareykanka uu u soo diray golaha mustaqbalka Soomaaliya ay ku mideysan yihiin mucaaradka iyo maamulada Jubbaland iyo Puntland? wararka kale waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo oo wacdaro ka dhigaya magaalada Muqdisho isagoo oo xoojiyay ololihiisa doorashada, iyo Farmaajo oo culays xoogan kala kulmaya madasha samata bixinta mucaaradka, iyo xiisada ka dhalatay bandhiga xeer ciise oo cirka isku shareertay xilli Somaliland ay shaacisay inay ka baqayso in uu qarxo dagaal sokeeye. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka. fadlan daawada muuqaalka like-ta share, sidoo kale subscribe-ta naga ilaabin oo la wadaag asxaabtaada. mahadsanidin dhammaantiin. aynu ku bilowno wararkeena. magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waxaa lagu karkarinayaa qorshihii ugu cusla ebid oo ka dhan ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana inta badan magaalada Nairobi gaaray siyaasiyiinta mucaaradka kuwaas oo iyagu doonayo inay ka qayb galaan shirka halkaasi ka dhacaya. shirkan oo ah mid xasaasi ah isla markaana ka dhan ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa la ogaaday inay martigelisay dowladda Kenya, isla markaana la doonayo in la isugu keeno siyaasiyiinta mucaaradka iyo weliba madaxda maamulada Jubbaland, Puntland iyo xubno kale oo muhiim ah. dowladda Kenya ayaa waxay u muuqataa mid dagaal qaawan ku soo qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. xogta waxay sheegaysaa in dowlado reer galbeed ah ay dowladda Kenya ka dalbadeen in la qabto kulan Nairobi oo ay isugu tagayaan mucaaradka iyo Puntland iyo Jubbaland, kadibna halkaasi looga go'aan gaarayo qorshaha lagu wajahayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh. madaxweynaha waxaad moodaa in uu wajahayo dagaal dhinacyo badan oo gudaha iyo dibadda ah, walow isagu isku dayayo in mar waliba uu kiisaskiisa maareeyo. haddaba wararka aynu ka helino magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waxay xaqiijinayaan in halkaasi ay isugu tagayaan siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda federaalka oo lagu daray maamulada Jubbaland iyo Puntland, kuwaas oo qabanaya shirar xasaasi ah oo looga arinsanayo xaaladda siyaasadeed ee dalka. kulamadan waxay ku soo aadayaan xilli siyaasadda Soomaaliya ay maraysa meel aad u kacsan, iyadoo la galay marxalad kala guur ah oo ku beegan dhamaadka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. xubnaha ilaa iyo hadda gaaray magaalada Nairobi waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo sidoo kale siyaasiga weyn ee mucaaradka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. waxaa la filayaa sidoo kale in xubno kale ay ilaa iyo maanta gaaraan magaaladaasi Nairobi, kadibna uu halkaasi ka furmo shir weyn oo lagu karkarinayo qorshe ka dhan ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. shirkanina waxaa gadaal ka riixaysaa dowladda Kenya oo iyaduna dalabka ka heshay wadamada reer galbeedka oo ay u sheegtay in dowladda Kenya looga fadhiyo inay qabato shir ka dhan ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. macluumaadyadan aan ogaanay ee shirkan ku saabsan ujeedadiisa ayaa waxay tahay in looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka oo markan ah mid taagan, murugsan, isla markaana aan lahayn hanaan siyaasadeed oo la isku halayn karo. waxaa sidoo kale looga doodayaa ajandayaasha shirka Kismaayo oo la filayo inuu noqdo shir weyn oo ka dhici doona magaaladaas caasimadda u ah Jubbaland oo lagu diyaarinayo mowqif midaysan oo lagu wajahayo dowladda federaalka Soomaaliya, iyo sidoo kale waxaa looga arinsan doonaa shirka Nairobi qaabka loo wajihi doono dhamaadka madaxweynaha madaxweynaha oo haatan galay marxalad xasaasi ah oo abuurtay dhaliilo, walaac amni iyo mid siyaasadeed oo markaasi cusub. si kastaba ha noqotee, dalka ayaa haatan wajahaya xaalad siyaasadeed oo cakiran, iyadoo mucaaradka iyo maamulada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kasoo horjeeda ay isku khilaafsan yihiin arrimaha la xiriira diyaarinta doorashada, dib u habeynta dastuurka iyo maamulka awoodaha hay'adaha qaranka. mucaaradka ayaa rumaysan in Villa Soomaaliya ay isku dayayso inay waqti dheeri ah hesho ama ku dhex milanto hanaanka doorashada, halka dowladdu ay ku doodayso in dib u habeyn qaran loo baahan yahay ka hor doorasho kasta. kulanka Nairobi ayaa lagu tilmaamayaa mid go'aamin kara jihada uu dalka u wajahayo
muddooyinka soo aadan gaar ahaanna haddii mucaaradku ay ku heshiinayaan mowqif midaysan oo ay ku gelayaan shirka Kismaayo. Shirka ka socda Nairobi iyo kuwa la filaya inay ka dhacaan Kismaayo ayaa noqon kara kuwa saameyn xoogan ku yeesha mustaqbalka siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh, inkasta oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu mar waliba u diyaarsan yahay sidii uu isaga difaaci lahaa wax waliba oo kaga imaan karaya siyaasadda gudaha iyo sidoo kale midda kale ee arrimaha dibadda. wixii macluumaad ah ee kusoo kordha shirarkaas waa shirarka Nairobi, wararkeena kale ayaan saaxiibayaal kusoo qaadan doonaa. Markana aynu eegno fariin Mareykanka uu u soo diray golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin mucaaradka iyo maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland. haddaba saaxiibayaal, sida warbixino hoose aynu ku helnay xalayna qayb ka mid ah aan idinla wadaagay, xukuumadda Washington ayaa waxa ay fariimo toos ah u soo dirtay siyaasiyiinta golaha mustaqbalka Soomaaliya. golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa waxaa loo soo diray fariimo kala duwan oo uga yimid dhankaasi iyo Mareykanka. wararka fariimahaasi laga helay ayaa waxa ay sheegayaan in lagu wargeliyay sida reer galbeedku ay wax u doonayaan oo ah wadar ogol iyo in markaasi la isugu tago miiska wada hadalka, isla markaana la qabto doorashada waqtigeeda ama in la helo wadar ogol. fariintan oo ka timid Mareykanka ayaa waxa la xaqiijiyay in ay ahayd mid miisaankeeda uu aad u cuslaa. laba arin ayaana ku qornay sida la sheegay: in doorashada xilligeeda lagu qabto iyo in markaasi wadar ogol la helo oo wixii lagu heshiiyo kadibna la raaciyo. ila xoogaal ayaa xaqiijiyay in fariin ka timid aqalka cad ee xubnaha golaha mustaqbalka soo gaartay. fariintan ayaa waxaa la sheegay in mid iyada la mid ah la gaarsiiyay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isagana sidaas ayaa lagu wargeliyay amaba loo sheegay iyada oo laga dalbaday in loo baahan yahay in la helo wadar ogol iyo doorasho xilligeeda ku qabsoonta. Mareykanka iyo waliba xubnaha kale ee beesha caalamka waa ay aamusan yihiin, waxaana ay yareeyeen fariimihii ay sida tooska ah ula wadaagi jireen guud ahaanba dadka Soomaaliyeed. hadda si gaar ah ayaa la tilmaamay in fariimahan loogu dirayo xubnaha mucaaradka iyo waliba madaxda kale ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. siyaasiyiinta mucaaradka ayaa arrimahan u arkaa kuwa iyagoo fursad u ah oo lagu cadaadinayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana laga dhursugayaa shirarka Nairobi iyo sidoo kale kuwa kale ee Kismaayo, walow madaxweyne Xasan uu ku dadaalayo in uu baajiyo amaba uu isku dayo in uu joojiyo shirarka Kismaayo. barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay ayaad la socotaan saaxiibayaal. markana madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo ayaa waxa uu wacdaro ka dhigayaa magaalada Muqdisho. gurigiisa ayuu waxa uu ka wadaa olole aad iyo aad u ballaaran oo lama filaan noqday, iyada oo gurigiisa ay ku qulqulayaan siyaasiyiin iyo waliba dad kale oo shacab ah, isaga oo kala hadlaya arrimihiisa ku aadan in uu doonayo in mar kale uu Soomaaliya hogaamiyo. madaxweyne Farmaajo oo gurigiisa aad uga xardhay boorarka xisbiga Nabad iyo Nolol ayaa waxa uu haatan doonayaa in uu si firfircoon uga qayb qaato ololihiisa, maadaama inta badan lagu xamanayay in uu yahay nin nasiibkiisa tijaabiyo oo aan ololo badan gelin, isla markaana marka doorashooyinka ay ka dhiman yihiin bil ama 2 bil oo kaliya yimaada. laakiin hadda iyadoo 6 bilood ay ka dhiman tahay madaxweynaha dowladda federaalka ayuu yimid, waxaana hadda uu wadaa kulamo aad u ballaaran. laakiin madaxweynaha ayaa caqabad weyn kala kulmaya dhankaasi iyo in xubnaha mucaaradka ee madasha samata bixinta, waxaana ay markaasi saarayaan culays iyagoo u arka nin iyagu ka saameyn badan. dagaal hoose ayay kula jiraan, waana ay diideen inuu qayb ka noqdo garabkooda. laakiin Farmaajo ayaa isku arkaa siyaasi iswadi kara oo saameyn leh, isla markaana meel fiican ka soo bixi kara. ugu dambeyn, xiisada ka taagan galbeedka Somaliland si gaar ah gobolada Awdal iyo Salel ayaa laga cabsi qabaa inay isku bedesho dagaal sokeeye. arrinta ka dhalatay bandhiga buuga xeer Ciise ayaana in xaaladda galbeedka Somaliland gelin karta halis. xukuumadda Hargeysa waxay sheegtay inay ka cabsi qabto oo ay markaasi walaac ka muujinayso in halkaasi uu ka dhaco dagaal sokeeye. intaas aan saaxiibayaal barnaamijka ku soo afmeerayaa. nabadii.